muddo 10 sano ah waaxda bari ee dugsiga sare ee Blackwood waxay ahayd meel laga bogo sida meydka qudmay oo kale. Meeshaas waxaa loo yaqaanay aagii dhimashada oo aan kaliya ahayn xaaladeeda burbursan laakiin dhacdo argagax leh ayaa bartaas ka dhacday. Sanadkii 1965 ayaa koox dhan oo ardaya iyo macalinkoodii la waayay. Meydadkoodii lama helin laakiin dhiigga darbiyada ku yaalay ayaa markaasi wuxuu sheegay sheeko aad u murugo badan. Habeen qabow oo dayr ah ayaa 5 arday waxay go'aansadeen inay soo baaraan waaxda mamnuuca ee bari. Markaasi waxay ahayd tartan tijaabo geesinimo. Ryan oo ahaa kan fikradaas leh ayaa qoslay markii albaabka si xoog u furay. Hawada waxay ahayd mid aad u culus, iftiinka ka imanaya tooshkoodana ma ahayn mid gaaraya hoolkoo dhan. Ma baqaysaan hadda? Ayuu dhahay Ryan asagoo ku jeejeesay saaxiibadiis. Codkiisana wuxuu si dabiici aan ahayn ugu dhex milmayay hoolka cidlada ah. Inta kale si culus ayay u qosleen iyagoo isku dayay inay geesinimo muujiyaan, laakiin waxa aad u weyn ayaa khaldanaa. Hawadu waxay ahayd mid nool oo aad iyo aad u culus, taasoo qarinaysa qaylada ka dhex yeeraysa meesha. Ugu dambeyn waxay gaareen hoolkii riwaayadaha lagu dhigi jiray. Markaasi masraxa wuxuu ahaa mid kala daadsan, kuraas jaban, agabkii oo taxalaystay iyo daahyadii oo qurmay ood moodid sidii in meyd lagu duuduubay oo kale. Markay u sii dhawaadeen waxay arkeen wax la yaab leh, raad biyo oo qoyan oo ku sii socda jaranjarada masraxa inkastoo qolku gebi ahaanba qalalan yahay. Clara ayaa markaasi hadashay waxayna tiri qof ayaa halkan. Intaysa hadalkii dhammaystiranba cod aad u naxdin badan ayaa ka yeeray masraxii. Codkaasi ma uusan ahayn qof iyaga ka mid ah ama qof bini'aadanba ah, wuxuu ahaa cod markaasi dheer oo aan qof bini'aadan ahayn. Markaasi codkaasi wuxuu dareenkooda u xoqeeyay sida ciidiyo lagu xoqeeyo muraayad oo kale. Si kadisa waxaa daarmay leerarkii masraxa wuxuuna muujinayaa muuqaal aad u argagax badan. 12 muuqaal oo mugdi ah, jirarkooduna uu jajaban yahay, afkooduna uu yahay mid aad u weyn, markaasina qaylinaya qaylo aamusnaan oo ciil ku jiro. Indhahoodu waxay ahaayeen godad madmadow oo ilmeynaya dhiig. Markaas waxay ku dhageegsanaayeen ardayda meesha taagan. Ryan oo isku dayay markaasi inuu cabsidiisa ku qariyo qosol ayaa hore istaagay wuxuuna dhahay qofkii alaabtan soo abaabulay wajigiisa ayaan ku qosli doonaa. Intuusa hadalka dhammaystiranba xoog aan loo jiidin ayaa wiilkii dafay. Ardaydii intii kale si argagax leh ayay kor u fiirsheen ayagoo markaasi dhulka ka dhaqaaqla markii Ryan kor loo dafay. Markaasi waxay daawanayeen Ryan oo markaasi jirkiisa loo laalaabayo si aan dabiici ahayn, lafihiisana markaasi waxay si cad u maqlayeen isagoo gacmihiisa iyo lugihiisa ka gadaal loo jajabinayo. Markaasi wuxuu u ekaaday jid yar oo markaasi isku laaban oo dhiig ka qubanayo. Ugu dambeynna dhulka ayaa lagu soo tuuray isagoo meyd ah. Clara way matagtay, gacmaheedu gariiray ayaa markaas waxay bilaabeen inay iska masaxdo dhiigga wajigeeda ku sii daatay. Kuwii kale way qayliyeen waxayna ku carareen albaabka, laakiin albaabkii si xoog ah ayuu isku xiray. Hawadii way sii qabowday, neef kastana waa la arkayay. Markaasay maqleen codadkaasoo ka yeeray darbiyada oo codad kala duwan ah. Hal eray ayayna dhahayeen mashruuc. Ellie oo ahayd tan ugu yar ardayda ayaa markaas waxay bilowday inay si istaba joog u weydo ayadoo markaas ku haysa ma samayn karo arrintan. Ugu dambeyn way qaylisay, tooshkeeda ayaa daciifay, markii ugu dambeysana wuu damay. Markaasi ardayda waxay maqleen ayadoo markaasi mugdiga ka qaylinayso. Markii uu nalka soo laabtayna Ellie ma aysan joogin meesha, kaliyaatu waxaa yaalay raad dhiiga kaasoo u socday dhinaca darbiga. Qaylo dheer ayaa yeertay, saqafkiina wuxuu bilaabay inuu da'o wax madow oo markaasi culus. Waxaasi ma uusan ahayn biyo ee wuxuu ahaa dhiig. Dhiigaasna waxaa la socday urka meydka. Intii soo hartay waxay bilaabeen inay darbiyada taataabtaan iyagoo markaasi ka raadinaya meelay ka baxaan, laakiin waxa kaliyaata ay heleen waa muraayad aad u weyn taasoo markaasi la ekeed darbiga. Muuqaalka ay ku arkeen muraayadda waxay ahaayeen iyaga, laakiin isla iyaga ma ahayn. Sababtaa waxay arkayeen iyagoo jirkooda la jajabiyey, wajigooda la dilaaciyey, hungurigoodana la gooyey oo indho la'aan ah. Laakiin dadkan u eg waxay ahaayeen kuwo dhoola cadeynaya, afkooda furanna waxaa ka daadanayay dhiig. Kuwii u ekaa mid ayay ugu soo dhawaadeen muraayadda ayagoo markaasi muraayadda ku taabanaya gacmo dhiig leh. Maya ha ii soo dhawaan ayuu ku qayliyey Mark kaasoo ahaa
midkii ugu degnaan jiray ardada. Laakiin kan isaga u eg ee muraayadda ku jira ayaa intuu dhoola caddeeyey bilaabay inuu madaxa ku garaaco muraayadda. Garaac kastana waxaa dilaacayay madaxa Mark, asagoo markaasi dhiig ka imanayo dhaawacyo aan la arkaynin. Markii ay muraayadda jabtayna Mark dhulka ayuu ku dhacay. Jirkiisa oo aan naf hadda lahayn ayaa wuxuu bilaabay inuu gariiro. Clara iyo Ethan oo ahaa kuwii ugu dambeeyey ayaa aad isku hayay, kuwaasoo cabsi saa'id haysay. Muuqaaladii markaasi masraxa taagnaa ee mugdiga ahaa ayaa dhinacooda u soo socday. Jirkooda jajaban markaasi dhulka alwaaxa ah ayuu ku soo jiitamayeen. Waa inaan dagaalanaa, Ethan ayaa bilaabay, laakiin gacan aad u qabow ayaa afkiisa qabatay, waxaana loo jiitay dhinacii mugdiga ahaa. Qayladiisa ayaa meeshoo dhan iskabsatay, ugu dambeynna way joogsantay. Clara keligeed ayaa soo hartay, waxayna markaasi u jeesatay inay cararto, laakiin daahyadii masraxa ayaa soo loolaaday. Markaasna lugaha ayay iskaga duduubeen, waxayna u soo jiideen dhinacii masraxa. Clara waxay bilowday inay isdifaacdo, laakiin muuqaaladii mugdiga ahaa ayaa hareereeyey. Afafkoodii jajabnaa ayaa markaas waxay bilaabeen inay ku xagxagtaan oo ku cunaan. Qayladeedii markaas waxay isku beddeshay mid qoyan, sababtoo afkeedii oo dhan ayaa wada dhiig ahaa. Ugu dambeyn markay cunayeen, subaxdii markii la gaaray, waaxda beri way aamusneed. Caddeynta keliya lagu garanayay inay ardayda meesha jooga waxay ahayd sacabka meesha ka yeeray ee aad u dhow, iyo sidoo kale fariinta dhiigga ah ee lagu qoray daahyada, taasoo ahayd riwaayaddu waa inay socotaa. Ilaa maanta, iskoolka Blackwood waxay ardaydooda uga digaan inay galaan waaxda beri, laakiin marmarka qaar habeenkii waxaad maqli kartaa qaylo iyo dhawaaqa daawadayaasha kuwaasoo sacab tumanaya.